waxaa saacado ka hor la soo saaray natiijada ardayda shahaadiga ah ee dhammaan dugsiyada sare ee maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir waxaana mar qura baraha ay bulshada ku kala warqaaday social media ka dhacay dhulgariir ku aadan natiijada ka soo baxday imtixaanka iyo in ardayda dhacday ay yihiin kuwa miisaan culus waalidiinta qaar ayaa naxsan haatan halkee ay wax ka qaldan yihiin waxaa jira musuqmaasuq ku aadan natiijada ardayda ma fanaanka la yiraahdo Sharma Boy ay dawladda iyo waalidiintu ku eedeynayaan in ardayda intaas leeg ay ka dhacaan imtixaanka dawladda maxaa ka jira in maxkamad la soo saari doono Sharma Boy TikTok miyaa saameyn badan ku leh natiijada soo baxday muxuu yahay muuqaalka saameynta badan dhaliyay ee daqiiqadihii la soo dhaafay ruuxay baraha xiriirka bulshada dhinaca internetka qaas ahaan Facebook imise arday ayaa imtixaankaasi ka dhacday wiilal iyo gabdhaba warbixintan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa sir ku saabsan natiijada imtixaankii la soo saaray saacado yar ka hor haddaad xiiseynaysiin inaad wax badan ka ogaato imtixaanka iyo sheekada maada leh ee baraha Facebook dhex socota waxaan kaa codsanaynaa inaad muuqaalkan like saarto si muuqaalka uu saaxiibo badan u gaaro taasina dhiirigelin ayay noo tahay hana hilmaamin inaad muuqaalka u sheergeliso asxaabtaada si aan u guulaysano oo aan u helno saaxiibo adigoo kale wanaagsan waad ku mahadsan tahay la jaanqaadkaaga waxaa saacado yar ka hor la soo saaray natiijada ardayda ka qalin jabinaysay dugsiyada sare guud ahaan maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir waxaana jirtay sanadkan guux badan oo ku aadan in si hubantii natiijada loo sixi doono oo ardayda qaar laga yaabo inay imtixaanka ka dhacaan sababtoo inaysan ahayn arday aan waxbarashadu soo jeedin aan dib ugu laabano maalmo ka hor waxaa soo baxay sidoo kale natiijada ardayda ka qalin bedelanaysa dugsiga dhexe una gudbaysa dugsiga sare arday badan ayaana dhacday laakiin markani waa kuwa dugsiyada sare oo waalidiintu ay aad uga baqanayeen in ardaydoodu ay imtixaanka ka dhacaan gobolada qaar ayaa ceeboobay xitaa aan dhaho gobolka Banaadir ayaa ka mid ah goobaha ceebaysan natiijo ahaan dadka qaar ayaa isweydiinaya Muqdisho iyo gobolada qaar maxaa qabsaday isticmaalida barta ay dhalinyaradu aadka ugu badan yihiin TikTok iyo heesaha Sharma Boy miyaa saameyn badan ku yeeshay helidda natiijada liidata dadka qaar ayaa ku kaftamaya in gado oo kaalinta koobaad xiratay aan laga xiiseynin barta TikTok ama dhammaan ardayda guulaysatay aysan aqoonin sida loo isticmaalo bartan TikTok oo ah barnaamij ay dhalinyaradu aad ugu daadsan yihiin kuwani waa wiilal taageera Sharma Boy kana soo muuqda heesta ruuxday bilihii la soo dhaafay barta TikTok heestiisa Desha Dela karago laba saar markani waa gabdho iyaguna gaarigooda ku dalxiisaya oo markooda ku tuurtay heesta Sharma Boy kani ayaa noqday muuqaal la yaab leh oo tan iyo markii natiijada la soo saaray aad loo hadalhayay waxaan ciwaanku ugu badan u noqday macallinkooda ayaa Sharma Boy ma ahan midkii iskuulka maxaa iska galay sheegidda magaca Sharma Boy iyo ardayda ka dhacday imtixaanka tani waxay u muuqataa mid kaftan ah iyo saameynta uu dhalinyarada ku leeyahay Sharma Boy oo badi dadku ay aad u garanayaan sababtoo ah waa fanaan ay dhalinyaradu jeceshahay soona saaray waqtiyadii la soo dhaafay heesa dhalinyarada aad uga gadmay وحريرة كما دحيو ardayda Sharma Boy iyo waliba natiijada liidata balse fanaan kan ayaa mid ay aad u xiiseeyaan dhalinyarada waxaana dadka qaar ay ku cabirayaan in heestii uu soo saaray ka hor maalmihii imtixaanka ee Desha Dela taasoo dhulgariir ka sameysay barta TikTok ay saameyn ku yeelatay in ardayda imtixaanka diyaarsadaan taasina waa wax kaftana mana jiraan wax maxkamada oo lala tagi karo Sharma Boy iyo xitaa qalad uu ku leeyahay in dhalinyaradu ay aad u jeclaadaan heesihiisa inta badan ay ku mashquulaan dhageysiga heesihiisa
muhiimadda aynu Sharmaboy u soo qaadano waa jaceylka ay badi u qabaan dhalinyarada iyo xitaa aandhaha ardayda iskuulada dhigata iyo si la mid ah la jaanqaadida madadaalada barta Facebook oo aad loogu hadalhayo in macallimiinta iskuulada aysan ardayda u ahayn macallimiin ee Sharmaboy uu yahay macallinkooda taasina ay ka dhigan tahay in casharadiisa ay ka baxaan halka imtixaankan ay natiijo liita keenaan marka loo eego shaxda kala sareynta maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir dhanka imtixaanka dugsiyada sare waxa kaalinta koowaad ku jira Jubbaland Galmudug ayaa labaad ku jirta Koonfur Galbeed ayaa saddexaad ah Hirshabeelle ayaa afraad ku jirta Banaadirna kaalinta shanaad ay markaasi soo galeen sidoo kale tobanka dugsi ugu heerka sareeyana waxa afarta ugu horeysay yihiin kuwa ku yaala Gedo halka Jubbada Hoose Baay iyo Galguduud ay yihiin kuwa soo xirtay boosaska kale ardayda gobolka Banaadir layaa ma ahan in ka badan 5,000 oo arday imtixaanka ka dhacdo halka 17,000 ay gudubtay dadka qaar ayaan u arkin inay taasi guul tahay wiilasha dhaca ayaa ka badan gabdhaha taasina waa wax iska caadi ah sabab la xiriirta farqiga u dhaxeeya wiilasha iyo gabdhaha iskuulada dhigta haddaba haddii aad muuqaalkan daawatay maxaad u malaynaysaa hoos u dhac waxbarasho ee gobolka Banaadir iyo qaar ka mid ah gobolada dalka haddii aan si xaqiiqo iyo madadaalaba ah kula wadaagay hadalhaynta barta Facebook ee ku saleysan imtixaanka dugsiyada sare ee maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir like sar muuqaalkan una share gareey asxaabtaada magacaygu waa Shaafici Maxamuud Nuur Shaafiino